Assalaamu calaykum. Mid ka mid ah hablaha ku xidhan degalkeennan ayaa waxa ay iiga soo gudbisay mid ka mid ah asxaabteeda dalab kaas oo ay ku codsanayso in aan xalqad ka sameeyo sida uu qofku ku ogaan karo hibadiisa iyo waxa uu Ilaahay siiyay ee uu kaga duwan yahay dadka kale. Haddaba waxa ka mid ah waxyaabaha uu qofku ku ogaan karo hibooyinkiisa in uu ka qayb galo tartanada la qabto sida tartanka Qur'aanka Kariimka, gabayada, shaqooyinka, tarjumaada iyo waxyaabaha la midka ah ee tartanada laga qabto. Tartanku waa mid ka mid ah waxyaabaha uu qofku ku aqoonsan karo naftiisa. Waa mid ka mid ah waxyaabaha meeleeya mustaqbalka qofka. Isku day adigu, muhiim ma aha in aad noqoto qofkii la doonayay. Waa sax in aad u soconayso in aad noqoto qofka la rabo. Waxaase muhiim ah in aad ogaato in aad awood u leedahay waxa lagu tartamayo iyo in kale. 2. In aad samayso tijaabooyin iyo isku dayo. In marka aad ka timaado goobta waxbarashada ama shaqada aad fadhiisato guriga oo iska nasato oo nafisto, kuma ogaanaysid waxa aad ku fiican tahay ee Ilaahay hibada ku siiyay. Si aad taas u ogaato, waa in aad la timaado dhaqdhaqaaq iyo samaynta shay sida in aad ka qayb qaadato ururka ardayda ee ka jira goobtaada waxbarasho ama shaqo. In aad shaqooyinka ay qabanayaan dadka kale ku darsato waxa aad ku dari karto. Adiga oo halkaa ka ogaanaya waxa aad awoodda u leedahay ee aad ku fiican tahay. Ayna tahay in aad dadkaaga uga faa'iideyso. Waxa laga yaabaa in aad is aragto in aad ku fiican tahay isu keenidda dadka iyo abaabulka. Waxa laga yaabaa in aad ku fiican tahay dejinta qorshayaasha. Waxa laga yaabaa in aad ku fiican tahay diridda iyo maamulidda xubnaha. Waxa laga yaabaa in aad ku fiican tahay la xisaabtanka shaqaalaha. Meel kaleba adiga oo aan tegin, waxa aad samaysaa kulan joogto ah oo adiga iyo inta aad guriga ku wada nooshihiin ee dhalinyarada ah oo aad ku wada sheekaysanaysaan. Kaas ayaa waxa ka soo baxaya qofka aad tahay. Waxaase ay aad u sii sheegaan in aad ka fikirto wax cusub oo aad adigu hindisihiisa leedahay. 3. Iyada oo ay muhiim tahay in uu qofku naftiisa si uu u ogaado dhex galo dadka kale oo uu iyaga shaqo wadaag la noqdo, iyaguna ay arrintaa ku caawiyaan, ayaa haddana waxa ka sii wanaagsan in aad naftaada inta aad xilli la qaadato samayso shaqooyin iyo waxyaabo aad ku ogaan karto waxa ay ku fiican tahay naftaadu. 4. In aad kaashato dadka kale. Dadku waa kuwo inoo yaqaana si dhow iyo si dheerba. Marka waa in aad dadka weydiiso intii ay ku yaqaaneen waxa ay ka arkeen sifo xun iyo mid sanba. 5. Gelidda imtixaanada qofeed. Waa imtixaan la diyaariyay oo loogu talagalay in uu qofku ku ogaado ka uu yahay iyo waxa uu ku fiican yahay. Waxaana uu imtixaankaasi ku jira website aad u fara badan oo uu diyaar ku yahay. 6. Qoridda liis aad ku qorayso waxyaabaha aad ka hesho adiga oo waliba sii kala xulaya oo meel gaar ah ku qoranaya waxyaabaha aadka u xiisayso. 7. Xasuuso carruurnimadaadii. Markii aad yarayd waxaa jiray wax aad kaga duwaneed carruurta kale ee xaafadda iyo sidoo kale asxaabta madrasada Qur'aanka iyo dugsigii hoose. Taasi waxa ay ka caawinaysaa in aad waxa aad markaa ku fiicnayd dib u soo cusboonaysiiso. Inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan, waa Sakariya Haruuni oo idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum.